markaana mid hadalkii aan bilowno waxa ku leeyahay madaxweynuhu haddii annaga naga sugaysay saddexdan caqabadood baa taagan oo xal u baahan in laga gaaro wadankii doorasho u baahan yahay waxa kaliya boroseyskan uu ku sii socon karay waa xal siyaasadeed in la gaaro haddaan xal siyaasadeed la gaarin maanta baarlamaanka sharcigiisu uu dhacsan yahay waqtigiisu uu dhammaaday madaxtooyaha waqtigii intanaa oo dhiman waxay ku jiri karaan oo kaliya political agreement in la gaaro sababtoo waddanku waa federal isteedyadana siyaasaddii waddanka matalaya ra-iisul wasaarihii baa jooga waxa intaa ka dambeeya caqabad baa imanaysa maanta aynu gaarno heshiis saddexdii qodobna aan ka wada hadalno waxaan madaxweynaha u sheegay madaxweyne anigu kuraasta masharax mayni dhan kursi kabelihi laakiin waxaan rabnaa doorasha inay dhacdo xataa hadday adig kuu soo wada baxaanood kulli aad u ka shaqaysanayso waa sideeda wax kuu yaala laakiin horaanu yidhi boroseeska ka dhexbaxo kaambeynka ayaa ku jira intaan waqtigaa kaa dhammaanay waxaana kaa dhacdo doorashada ha dhacdo ogolo mayna dhicin intaasoo dhan madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo Soomaaliya ka mid oo degmo ka mid ah gobolka Gedo oo kuraas ay taalo oo yiraahdo aniga u baa ka talinaya haddaba madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday seebuu Soomaaliya u xukumi karaya hadduu hal degmo sheegtay oo yiri anaale waana ka soo jeeda oo reerka yaga dega oo ana maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu Soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas'uul ka noqdo oo yiraahdo ana Soomaaliya madaxweyne ka deegaan iyo levelka inta leeyna inuu ku kooban yahay wax dhici karaya ma waana arrin aad iyo aad loo xumaa waxaan ku baaqayaa waxaan diyaar u ahay wax kasta oo laga soo jeediyo waxaan u taagnay si kasta oo doorasho nabad ay ku dhici karayso waxaan diyaar u ahay oo inta ka hadlayn oo beer caalam iyo madaxda Soomaaliyeed ka hadlaynay warwadankan la badbaadiyo maanta waxay taagan tahay in madaxweynuhu uu balansaday baarlamaan waqtigiisa dhamaaday waxaan rabaa baarlamaanka Soomaaliyeed inuu sheego wadankan dhibaataha gelinida su'aal baa imanaysa 4 sano madaxweynaha aan arkay wadan ma maamulaynin yaa maamulayay xageesa wadankan uu ku socdaa 4 sano kadib sharciyada maanta baarlamaan lagula hadlayo iyo waxa la soo saaray waxay noqonaysaa Soomaaliya dagaal qabiil maaha dagaal sokeeye maaha 91 maaha system iyo dastuur baan leenahay isaga hala ilaaliyo